jasiirad gaar loo leeyahay meel qurux badan balse si degdeg ah u noqotay meel muran dhalisay warbixino kala duwan ayaa sheegaya in halkaas ay ka dhaceen dhacdooyin lagu eedeeyay falal sharci darro ah arrintaasi waxay dhalisay baaritaano iyo su'aalo waaweyn laakiin xog kasta waxay u baahan tahay caddayn taariikhdu mararka qaar si tartiib ah ayay u muujisaa runta Jeffrey Epstein ma ahayn siyaasi ama jilaac caan ah wuxuu lahaa xiriir heer sare ah ganacsato siyaasiyiin iyo dad caan ah taasina waxay sababtay in kiiskiisa uu noqdo mid si weyn loo hadal hayo sanadka 2019 wuxuu sugayay maxkamad wuu geeriyooday dhacdadaas waxay dhalisay su'aalooyin aan weli dhamaanin Stephen Hawking wuxuu ahaa saynisaan si weyn loo qadariyo waxaa la xaqiijiyay inuu ka qayb galay shir saynis oo Jeffrey Epstein maalgeliyay laakiin caddayn dembi lama helin dacwad sharci laguma soo oogin mararka qaar magac ku xusid kaliya ma aha caddayn dembi kala saarista wararka iyo xaqiiqada waa arrin muhiim ah taariikhdu mar walba jawaab degdeg ah ma bixiso laakiin weli su'aalaha way sii jiraan raadinta xaqiiqada waa safar dheer oo aan dhammaad lahayn qaar ka mid ah siraha dunida waxay ku qarsoon yihiin meelaha ugu quruxda badan jasiirad nin awood leh iyo magacyo caan ah oo lagu xusay fadeexad weyn tani ma aha sheeko caadi ah waa xaqiiq weli la baarayo